iyadoo ay si rasmi ah u bilaabmeen curashada roobkii guga isla markaana ay badiba ka da'een gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland ayaa maalinkii shalay galabnimadii waxaa magaalada Hargeysa ka da'ay roob weyn oo dabeyl watay isla markaana biyo dhigay guud ahaanba magaalada waxaana roobkan oo socday in ka badan saacad uu ahaa mid sababay daad badan oo geystay khasaare kala duwan isla markaana intuu da'ay joojiyay isku socodkii dadka iyo gaadiidka iyo waliba ganacsigii magaalada Hargeysa. roobkani waxa uu si weyn u waxyeelay dadka danyarta ee ku dhaqan xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa isla markaana aan haysan hooy ay ka galaan oo gabood uga noqdo biyaha roobka. Telefishinka caalamiga ee Kalsan ayaa markii uu roobku qaaday waxa uu ku urgalay sidii wax uu soo ogaan lahaa khasaaraha uu geystay roobkii xooggan ee ka da'ay magaalada Hargeysa waxaana la kulanay roobkan oo khasaaraha hantiyeed oo xooggan u geystay dadka danyarta ee ku dhaqan xaafada State House-ka ee magaalada Hargeysa. Dadkii xooggan ee uu sababay roobku waxay ahaayeen kuwa gudaha u galay guryaha ay deganayeen dadkaasi danyarta ah oo ah guryo ka samaysan buulal iyo sandaqado waxaana dadka xaafadaasi deganaa ay ahaayeen kuwa dibadda uga soo baxay guryahooda isla markaana dadkii xooggan ee roobku qaarkood ka qaatay dhamaanba alaabtii guryaha taala iyo waliba hugu ay ku seexan lahaayeen taasoo carruurta xaafaduuna ay ku hawlanaayeen biyahaasi sida ay uga soo dhuri lahaayeen guryaha waxaana guryahan ay biyuhu galeen qaarkood yaalay dad jilicsan oo xanuunsanaya oo aan tahli karin inay ka kacaan biyaha waxaana xaaladda dadkan danyarta ee roobkan waxyeelaya ay ahayd mid adag. dadkaasi danyarta ee guryahoodii daadku ka qaaday isla markaana qaarkood biyaha guryaha galay ay marayeen dhuuxa ayaa dareenkoodan wax ka weydiinay waxaana eedeymo u soo jeediyeen maayarka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteeko oo ay ku eedeeyeen inuu burburiyo biyo xidhano ay u sameysteen dadkaas waqtigii la dhisayay wadada hormarta xaafadaasi sidoo kalena dadkaasi waxay sheegeen in waqti xaadirkan ay u baahan yihiin gurmad degdeg ah. waxa la yiraahdaa walaal Saare Cabdi Ahmed waxaanu ka cabanaynaa daadka aqaladayadii uu la tagay waxa la wax duuyo iyo dadooda looga jooga aqalada saas u dhaxmaray caruur un baan u nagala tagin eesa duuyo uu nagala tagay waxa la wax meeshaan ma yaalaan ma jirto waxaana nagu soo duday dawladda wadaanu sameynaa bay tiri wadadii ay nagu soo duday ay tiri waanu sameynaa ayay naga qaadeen dhulkii aanu biyaha iska xidhnay aanu ciida dhignay ayay naga qaadeen imika maalinta maaha oo laba maaha oo saddex maaha intuu nala tagay marka waxaanu doonaynaa dawladdu inay wax nooga qabato walaal biyaha waxa jooga imika halka waxa jooga inaan curiyaan dirqi baa laga qabtay biyaha ishadii hore uu la tago isagoo dhex fadhiya ayaa wala loogu yimiday oo sidii u dhex jooga tira male aabahay baa imika guriga yaala saasoo kale ayuu la tagay suuli ma jiro faalig baa ku dhacay lagama qaadi karo isagoo dhex yaala ayaan arkay inaan baa yimid kursi baan u dhex dhignay annagoo kursiga ku hayna ayuu roobkii ayaan daadkii iska joojinay sariir baan markii dambe dul dhignay shaxdeed intaan soo qaadnay adduun iyo dad iyo wixii dhulka dhex yaalayna uu la tagay waxaanu ka anaasayna Maxamed Baaruuda oo inanka curyaanka ah dilaa intuu gaari jiray oo kabna waaday oo hadii la yiraahdo lugta midigtii ay burbursan tahay ay dhex jiifo qaraartii horena laga dhex reebay hadii la yiraahdo waxaanu u baahanahay dawladdu inay wuxuu noo qabato kolay iskarooy noo cabat noo barido oo hadii la yiraahdo inta naga mooska naga dheerayso hadii la yiraahdo raashinkii bay nagala tageen hadii la yiraahdo weelkii oo dhan bay nagala tageen kabihii bay nagala tageen wax raashinkii yaraa bay nagala tageen oo dharaar dhaweed meelna laga siiyay waxaan ku yiri ma noolin sida aan baan u taaganahay wakaas halkaas u dhex seexan waa 20 jir waliba carruurta dhalay gabadhiina waxa ugu maqan tahay caana iyo waxbay doontay oo way maqan tahay xusbigu ku maqan tahay waa ka dadkii soo gurmaday baan alaabtoodu ayaan nahay ayaan soo gureynay alaabtii ka gureynay waa ka mashaqada aragtaan awal biyuhu waxa uu ooli jiray tiiman waxyaabo la taagay waati cagaftu qaaday waanu rarayna buu nagu si kastaba ha ahaatee roobkaasi dabaysha iyo caleedka xooggan watay ee shalay ka da'ay magaalada Hargeysa ayaan la garayn inuu geystay khasaare nafeed marka laga reebo gaadiid uu qaaday dooxa weyn ee magaalada Hargeysa waxaana heegan buuxa ugu jira sida ay ugu hortagi lahaayeen waxyeelada roobkaas ay sababaan ciidamada kala duwan ee Soomaaliland gaar ahaan ciidamada dadamiska magaalada Hargeysa. Cabdi Fataax Xasan Xuseen Xarad Kalsan TV Hargeysa.